argagixisada al-shabaab ayaa wejigabaxnimo kala kulmay ciidanka xoogga dalka iyagoo mar kale laga adkaaday iyadoo la difaacayo dadka ku nool Camaara iyo nawaaxigeeda ee hoostaga Galmudug. Abaaro 10:52 daqiiqo oo barqanimo maanta ayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda caalamka weerar xagga cirka ah la beegsadeen dagaalyahano al-shabaab ka mid ah oo dagaal kula jiray ciidanka xoogga Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta ee Galmudug. weerarkan hawada ah ayaa ah kii saddexaad ee la fuliyo muddo 2 bilood ah ka oo al-shabaab looga sifeynayo Soomaaliya. wax dhibaato ahna kama aanay soo gaarin dadka shacabka ah ee deegaanadaasi ku nool. Galmudug ayaa aad loogu loolamayaa balse ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku gacan sareeya dagaalada halka ka dhaca. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku howlan inay dadka iyo dhulkaba ka xoreeyaan argagixisada al-shabaab. ciidanka xoogga dalka ayaa sii wadi doona dadaaladooda ku aadan in dalka laga dabargooyo argagixisada al-shabaab. waxayna sii labalaabi doonaan dadaaladooda ka dhanka al-shabaab ilaa ay dalka oo dhan ka sifeeyaan.